adduunyada waa deeq ilaahay bixiyo dadaalna waa lagu helaa dadaalna aanna waa lagu helaa bal ducana waa lagu helaa oo nabi Suleymaan mulkiga adduunyada ma dadaal buu ku helay mise duco ku helay bal ii sheega rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ma ku xiga fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruqa'an haythu asab markiiba ilaahay waan aqbalay buu ducadiisii mulkiga adduunka dhama gacanta ka galinay ma ha lacag wuxuu ilaahay weydiistay ma ha diblom iyo tacliin yar ma waa mulk waliba isaga dabadii cid dambana aanu qalmayn ayaa ilaahay yiri ilaahow isii dambigayga ilaahow dhaaf mulkiga caankaasan ilaahow isii ilaahay wuxuu yiri markiiba wuxuu yiri waan ka aqbalo ducadii waan siinay mulki intee leeg baa la siiyay marka hadalka shimbiraha la baray quraanjada hadalkeegii buu maqlay dabeelaha loo sakhiray jinka iyo shayaatiinta iyo cafaarida ayaa gacantiisa ilaahay soo galiyay oo amarkiisa badaha intay ku galaan jawaahirta ee dhamankay u soo saarayeen aqaladay u dhisayeen wadooyinkay sameeyeen waxa wuxuu u baahdo nabi Suleymaan jinka iyo shayaatiintu u diraayay waxa shimbira iyo hawada duulo dhanna korkiisa sida u socon jireen وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وككد عيسى دعاداس ملكي عالم كودن الهي انتو سو قاداي ايا الهي نبي سليمان غانتا كغليي بلا شروط wax shuruud lagu xidhin markaas ilaahay hada atauna tani waa deeqdayadii famnun aw amsik bigayri hisab hada doonto galladayso oo cidda doonto ku galladayso oo si hada doonto haysaba lagu yiri waxba laga weydiin maayo tan lagu xisaabin maayo tan wa aduyo